soo dhawaada. Assalaamu calaykum asxaabtay ku xiran maaragtay channelkay ku xiran aad ayaan idinku mahadnaqayaa number 1. Okay, waxa ay gaarsiiseen 543 qof markii ugu dambeysay aniga fiiriyo. Okay, aad ayaad u mahadsantihiin, waan idin jeclahay. Thank you guys so much. Okay, waxaan rabay maanta inaan ka hadlo TikTok guys. Aaladda TikTok maxaa ka socdo? Aaladda TikTok dagaalka adduunka ayaa ka socdaan ku dhahay. War waxaan ku dhahay inaan ka cararo oo aan ka dhuunto ayaan rabay, ma ka dhuuman kartib. Uu ku soo galaya gabadhii kaba yara la dhihi jiray, Farxiye kaba yara ma la dhahaa, iyo gabadha Nimco Joker dagaal ka dhex dhacay. Labada qof dagaalka markuu ka dhex dhacay, ilka yaa gabadhaas horto Nimco Joker la dhaho inaba caadi maaha. Raggeedi waaye, gacana u taagay, cadkeeda waxay soo goosan ayadaan xanaaqin, ayadaan isku khalkhalin, ayadoo waxbaba. Laakiin gabadhan oo kaba yara la dhaho, ilaaho kaba yara ha noo gelin. Bal hada kaba yara ay gashantay gabadhi, ilaaho kaba yara ha noo gelin. Kaba yartan la dhahay inaba caadi maaha. ay aabaha ma dhashay waaba tanag xashiish oo maaragtay dabaysh markii ku dhacdo bo iska dhahayo. Hadalka waxay ka sheegayso mar waxay noogu sheegtay gabadhan inay tahay ma dhalays. Haddana live ay soo furatay waxay noogu sheegtay inaan gabadheeda cabanaysayo ay lacag soo weydiisatay oo ay lacagtii siin weydo $1,000 oo lacag ay rabtay gabadheeda. Mar waxay nana daji markay soo furatay live-ka xaggay ka hadli lahayd oo gabadheeda la loolami lahayd oo dee amaata xis ka kala celin lahayd. ayadii annaga yaab aragnaan dhahnay ka soco waxaa imaaday gabdho mid waxay ku leedahay nina ureeyayoo nina ilmo uuri yeelayoo dee wuxuu igu sameeyey wixii dee naag lagu samayn jirayoo ninkan wuxuu leeyahay maya anima ku sameynay aniga abadan. Labadoodii kitaab alla loo ordaya, kitaab ayaa labadooda loo ordaya. War kitaabka goorma fududaaday? War kitaabka soo kii ka adkaa maaha? War kitaabka soo kii laga baqan jiray maaha? oo hadda marka kee annaga dee marka oo aan rumaysanaa marka waayahay ilaahayna ku dhaariyay. Labadii waxay ku leeyihiin kitaabkan gacanta saarayna, labadii waxaa lagu leeyahay wallaahi magaci ilaahay dee kee maqalaayo rumaysanaa. ka orodkaas naag istaahil la dhaho oo dee cid qabsataba la garan laayahay oo hooyo iyo aababa lahaynbo, because there's no way, wallahi there's no way gabadhaas hooyo aaba caadi u leedahay oo loogu soo dirsaday maxay tole social media, especially aaladda oo TikTok. aaladda TikTok gabadhaasi caana waxay ku soo baxday hoosteeda meesha private-geeda iyo nin jacayl ay ku soo baxday iyo acuudu billah kute maba dhimanayo. hadda waxayba keentay inay gudniinkiis ka soo furtay nin aaway, inay rabto inay ilmo dhasho. war yaadhaheen annaga yaab aragnay. war ani yaabay ayaa ila yaabay. yowmal qiyaamihii maan taaganahay. billahi min shaytaan rajiim. war intaasaa rabay inaan la sheekadayo. alkhayr ayna rajeeye insha allah. ilaahay waxaa kala dejiye ninkan istaahil yaqaanoon oo walaalo please dee koley gabadhan oo yaxaaska uga eeg wejiga gacmaha buurbuuran yaa qaadanaya dee horta yaa cidma qaadanaysee dee ilaahay leedahay maaragta hadduu mid jiro dee oo saas ku rabo walaalo please reerihiinanoo dee soomaalida ah ma u naxariisatiin gabadha dee annagu yaabnay ilaa maba dhegeysan karna waxaane TikTok dhan gabadhaasna uga tagnay nagu dhowdahay. sheekooyinku way xun yihiin, cirkay marayaan, halays bara qabto ayaan idin dhahay aniga kolleybo
iisoo sheega haddaa rabtiin inaan sheekooyin idiin soo dhigo. 4,000 oo watch hourka i gaarsiiya. dadkayga dad badanaa tihiin waan idin ogahay. insha allah waa kasoo hadli doonaa. Also 1,000 subscriberska i gaarsiiya guys.